waxaa lagu wadaa in maalinta beri oo khamiis ah in deegaanada maamulka Puntland uu u safro ergeyga gaarka ah ee arrimaha bini'aadanimada iyo gurmadka abaaraha u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliya xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur. safarka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ah mid looga jawaabayo baaqi dhawaan guddoonka baarlamaanka Puntland ka soo baxay ee ahaa in ergeyga gaarka uu yimaado Puntland isla markaana caalamka uu tuso xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada Puntland. ergeyga gaarka ee arrimaha bini'aadanimada iyo gurmadka abaaraha u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa la filayaa in marka uu tago deegaanada Puntland uu warbixino la xiriirta abaarta ka dhageysto madax ka tirsan maamulka Puntland. sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa booqan doona meelaha qaar oo dadka ku nool ay abaartu saameysay si ay ugu kurgalaan xaaladooda. ergeyga gaarka ee arrimaha bini'aadanimada iyo gurmadka abaaraha u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa horey u tagay degmooyin ka tirsan gobolada Hiiraan, Gado iyo Baay halkaasi oo ay ku nool yihiin dad ka soo barakacay abaarta.